soo dhawaaw janaalkani Doobiya Media haddii aynanka ku cusub tahayna calaamada subscribe-ka taabo isla markaasina meesha gaduudan ee subscribe-ka markaad taabatid like taabo kambalaalka furo. Doobiya Media waxaa ka daawo kartaa sportiska qaybihiisa kala duwan dal iyo dibad kuwa ah arrimaha siyaasadda dalka iyo dibadda waa ku soo gudbi doonaa dhacdooyinka dunida ay ka dhacaan iyo kuwa gudaha bal intaba waa ku daawo kartaa. meeshan waxaan ka marnay fanka iyo sugaanta ay caalamka ku weyn hooyo. Doobiya Media mari waliba waa mid ku xiisa geli doona isla markaasina adigana ku xiisa geli kartaa inaad subscribe taabatid oo laagtii calaamada hortaada muuqdaa isticmaashid. Doobiya Media wuxuu taagan yahay mar walba qancinta iyo weliba baahitirkaada waana ku mahadsantaa sida subscribe u taabat laagtan u taabat gambalaalkan u furatay. haddii ay fariintaani ku soo gaarto iyo warbixinada kusii shargeey la sii wadaag asxaabtaada. daawada ku soo dhawaada janaalka Doobiya Media. qodobada dalka Soomaaliya kuwada ugu waaweyn ku daawan doontaan waxaa kamid ah madaxweynihii hore Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka digay dalka dastuur la'aan inuu noqdo qoraal u gudbiyay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya. sidoo kalena booliiska Soomaaliya oo qabtay tababar ku aadan arrimaha doorashooyinka amniga sida loo sugayo ayaa maanta magaalada Muqdisho laga qabtay. sidoo kale gaalkacyo qarax ayaa ka dhacay isla markaas waxyeelay ka soo gaartay waa ku daawan doontaan hadduu eebaha awoodda leh noo ogolaado. waxaa sidoo kale ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk oo dacwad u gudbiyey odayaasha dhaqanka Puntland kaasoo ku aadan madaxweyne Dani. bariiska dowladda federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan 3 maalmood soconaya waxay ka fureen magaalada Muqdisho kaas ay u qabteen guddiga doorashooyinka ee dowladda federaalka Soomaaliya. kulankaasi ayaa waxaa qayb ka ahaa xubnaha ka socday xafiiska madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya sidoo kalena xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaana sidoo kale qayb ka ahaa wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha xoogga dalka Soomaaliya saraakiil ciidanka dowladda ka tirsan gaar ahaan kuwa booliiska. sidoo kalena waxaa qayb ka ahaa midowga Afrika iyo AMISOM ciidamadeeda ku sugan magaalada Muqdisho iyo gobolada dalka. sidoo kalena qaramada midowga xubno ka socday guddiga amniga ayaa waxaa doorashooyinka shirkaasi loogu talagalay sidii u qabsoomi lahayn doorashooyinka isla markaasina loo adkeyn lahaa ammaanka goobaha doorashooyinka ka dhacayso. waxaana kulankaasi soo qabanqaabiyey taliska ciidanka booliiska Soomaaliya sida uu sheegay Sadiiq aadan cali oo ah afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed. Sadiiq ayaa sheegay maalmihii ugu dambeeyay socdaallada uu ku soo marayay taliya xajaar taliyaha ciidanka booliiska maamul goboleedyada dalka Soomaaliya magaalooyinkiisa kala duwan ayuu ku xaqiijiyay in loo baahan yahay in la qabto tababarkaani isla markaasina loo qabto guddiga doorashooyinka. wuxuuna sheegay muddo 3 maalmood inuu socon doono maanta si rasmi ah magaalada Muqdisho ugu furmay isla markaasina uu soo gabagaboon doono 15 bishan. sidaasoo sheegay in rajo weyn ay ka qabaan natiijada ka soo baxaysa isla markaasina dalka uu dareeri doono doorasho taas oo noqon doonto mid ku soo dhamaatay guul. waa sida uu yiri afhayeenka ciidanka booliiska. shirkii guddiga amniga doorashooyinka qaran oo ah shirkii ugu horeeyay oo ay yeeshaan heer dowlad goboleed oo iyaga xubno ka ah guddiga amniga doorashooyinka heer qaran. shirkan maanta noo furmay magaalada Muqdisho wuxuu socon doonaa 3 bari 2 cisho soo socotay maantay wuxuu ka bilowdaa 13 bisha ilaa 15 bisha oo looga arinsanayo amniga diyaar garowga amniga doorashooyinka qaran 2021. madaxweynihii hore Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo qoraal uu soo qoray isla markaasina u gudbiyay madaxda ugu sareysa dalka Soomaaliya gaar ahaan guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha jamhuuriyadda ayuu wuxuu ku sheegay in dalka uu kaga digayo inuu galo dastuur la'aan isla markaasina loo baahan yahay in loo wada istaago dalka loo sameeyo dastuurka lagana baxo kan ku meel gaarka. wuxuuna sheegay in dastuurka imanka oo la shaqeynayo baarlamaanka 10aad isla markaasina waqtigiisa doo dhamaado u dhacayna loo baahan yahay in lagu xindaabo dadka Soomaaliyeed iyo dowladnimada dastuur oo yeesho maadaama lagu xiray baarlamaanka 11aad ee la soo dhisi doono 2020-2021 aan wali la gaarin qorshaheedana lagu jirin loo baahan yahay hanaan kale lagu badbaadiyo dalka la sameeyo. qoraalkiisa ayuu u gudbiyay labada aqal ee hogaankooda gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo sidoo kalena kan aqalka sare iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. waxaan ugu goleynahay in dalka uu galin dhibaato isla markaasina la helo hay'ad dastuuriya isla markaasina dastuurkan ku meel gaarka waqtiga uu soo dheeraaday lagu dhaqmay laga baxo loo baahan yahay. wuxuuna Xasan Sheekh Maxamuud qoraalkiisa sidoo kalena ku sheegay in dalka dastuurka ku meel gaarka lagu shaqeynayo oo waqtigiisa ku ekaan doona baarlamaanka markuu dhacayo.
magaalada Garowe ee xarunta maamulka Puntland waxaa kulan ku qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble iyo sidoo kalena qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee magaaladaasi Garowe ku sugan maamulka Puntland. Kulankaasi ayaa waxaa ra'iisul wasaaraha oo dacwad kaga gudbiyay iyo tabasho u ka qabo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Madaxweynaha maamulka Puntland iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Roble ayaa habeenkii xalay kulan ku yeesheen magaalada Garowe ayaa wuxuu ku soo dhamaaday natiijo la'aan kadib markuu madaxweyne Dani soo hordhigay shuruudo adag oo ku xiriirta arrinta doorashooyinka muranka ku taagan yahay. Ra'iisul wasaare Roble ayaa maanta odayaasha dhaqanka ee maamulka Puntland wuxuu u sheegay inay ka biyadiideen isla markaasina oo ka kulankii ugu dambeeyay Dani la qaatay oo ka biyadiiday shuruudo adag soo dhigay loona baahan yahay in la fuliyo heshiisyadii maamul goboleedyada dowladda Soomaaliya ee ku wada gaareen magaalada Muqdisho si loo aado doorashooyin la fuliyo. Saciid Dani oo taasi iyo asiga iyo maamulka kale ee Jubbaland hogaamiye Axmed Madoobe ka biyadiisay isla markaasina loo baahan yahay inay la hadlaan war cad ka keenaan. Haddii uu ku adkaysto arrintaasi ayuu yiri ra'iisul wasaare Roble Saciid Dani inuu soo magacaabin guddiga doorashooyinka oo xakiyay isla markaasina loo baahan yahay in la meel mariyo magacaabista oo laga sugayo balse uu ka biyadiisan yahay Dani aan qaadi doono dowladda Soomaaliya tilaabo ku aadan qabashada doorasho waqtigeeda ku dhacdo. Maamulka Puntland iyo maamulka Jubbaland ayaa waxay ka biyadiisan yihiin hanaanka dowladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda guddiyada ay soo magacaabay sidoo kalena ay jiraan musharaxiinta qaar ay ka biyadiisan yihiin doorashada dowladda federaalka Soomaaliya. Puntland iyo Jubbaland shuruudo adag ay hordhigtay oo ku aadan in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo dib loo celiyo iyo sidoo kalena guddiga lagu muransan yahay oo xubno ka tirsan hay'adda sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA iyo sidoo kalena xafiiska madaxweynaha xubno shaqaale ka ah iyo taageerayaal kale ee lagu sheegay in guddiga qayb ka yihiin. Puntland kulamadaasi oo maalmihii ugu dambeeyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo ayaga siyaasadooda cirku isku sii shareereysay shirka iskaashiga caalamiga ee magaalada Muqdisho ee dowladda federaalka ra'iisul wasaare Roble goobjoog ka ahaa oo ballan qaaday inuu tagayo maamul goboleedyada ayaa maalintii shalay ahayd markuu gaaray kulan xalay ka dhacay Garowe isla markaasina shuruudahaas adag la soo dhigay oo meel mari waayay. Taasina maanta kulan kale oo ku yeeshay magaalada Garowe isla markaasina oo la qaatay qaybaha kala duwan ee bulshada oo dacwadaasi ugu gudbiyay odayaasha dhaqanka madaxweynaha maamulka Puntland. magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug maanta xarunta dowladda hoose waxaa ka dhacay afafkeeda hore maqaayad ku taala qarax halkaasi oo lala beegsaday dad ku sugnaa maqaayad halkaasi ku tiilay. qaraxa ayaa waxaa la xaqiijiyay ilaa 8 ruux inay ka soo gaartay dhaawacyo isla markaasina la geeyay goobaha caafimaad ee ku yaala magaalada Gaalkacyo. gudoomiyaha magaaladaasi isla markaasina duqa magaalada Gaalkacyo oo warbaahinta la hadlaya sheegay in qaraxaasi loo adeegsaday in la dhigay maqaayad ku taala afafka hore xarunta dowladda hoose ee maamulkaasi Mudug oo ku shaqeeyo isla markaasina yeele ay ka soo gaartay dadkii halkaasi ku sugnaa kuwaas oo dhaawacay tiradooduna ku sheegay ilaa 8 qofood. wuxuuna sheegay in baaritaano ay sameeyeen isla markaasina ciidamada ammaanka ay soo qabteen tiro dad ah isla markaasina baaritaano loogu hayo kuwaasi oo loogu sheegay qabo inay ka dambeeyeen qaraxii maanta ka dhacay. muslimiintii iyo shacbiyadii reer degmada Gaalkacyo ilaahay waa ka badbaashay dhammaan wax dhibaato iyo khasaare oo culays oo naga soo gaaray ma jiraan. garaafooyin buu ku aruuray alxamdulillaah rabbil caalamiin. talagalkaas oo u ekaa inay la soo goobeen xarunta dowladda hoose ee shacbiyadda degmada Gaalkacyo lagu adeegayo. waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel walba oo joogaan reer Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo dhalinyarada la khalday ee la yiri aabiin iyo hooyadii soo dila ee dadkan aqrabada la dhashay waxaan leenahay walaalayaal waa la idin khalday in la idinku qanciyo walaalkiin iyo aabihiin iyo hooyadiin ay soo dishaan xal ma aha. shacabka reer Galmudug gaar ahaan degmada Gaalkacyo waxaan leeyahay hagartaas la soo maleegay oo falka fuliynimadu ay ka muuqato ahaa wuu fashilmay. ilaahayna wax dhibaato naguma yeelin. ilaahay waa naga badbaashay dhammaan shacbiyadda iyo annagaba. waxaan rabaa inaan iraahdo dhalinyarada la khalday ee Soomaaliyeed ee ku qanacday inay maalin walba dhiigga walaalahood aabahood hooyadood ay daadiyaan waxaan leeyahay arrintaas walaalayaal ka waantooba. annagana ma nagu argagax gelin doontaan qarax aad meel gelisaan ama mid aad gaari ku soo xirtaan ama qof aad jaakad u soo gelisaan rabbo inay kugu noqon mayno. dadka loo qabta shakiga ilaa iyo hadda 4 ruux baa loo hayaa. baaritaankuna waa sii soconaya insha Allah.